halkani waa Wajaale waana magaalada uu ku nool yahay Cabdiraxmaan oo ah wiil 8 jir ah isla markaasina Rabbiga Raxmaanka ahi uu jidhkiisa sare u sameeynin dubka sare bilaadanka ee difaaca waa jidhka aadamaha. Cabdiraxmaan wuxuu ku soo jiraa qoys yar ah oo aan awoodin inay la tacaalaan xaaladiisa caafimaad balse waxay taageero garab istaag taakulayn ay ka sugayaan walaalaha muxsiniinta ah ee adiga aniga iyo inaga meel kastoo aynu joogno inaynu taageero iyo tabantaababa u fidino qoyskan danyarta ah ee aan awoodin inay la tacaalaan xaalada wiilkoodani. qorraxda, dhaxanta, kulaylka, dabaysha iyo diqsiguba way dhibayaan Cabdiraxmaan. duruufta adag ee haysato qoyskeena waa mid aad u adag. ururka Al-Khayriya waa urur ay ku bohoobeen hablo walaalo muxsiniin ah oo degan wadanka Ingiriiska kana damqaday xaaladda wiilkan yar ee 8 jirka ah waxaana ay walaalahaasi ugu soo deeqeen wiilkan yar $1630 oo lacag ah waxaana ay deeqdaasi ku soo hagaajiyeen Safiya Cabdi Absiye oo deeqdaasi iyaduna u wakiilatay inay gaadhsiiyaan qoyskani danyarta ee ku sugan magaalada Wajaale. xildhibaan Cibaada Maax Cilmi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley waana samafalaynta badan ka qayb qaata caawinta dadka danyarta iyo sidoo kale Cabdilaahi Dagaal oo door weyn ku leh caawinta iyo garab istaagga dadka danyarta ah. walaalahani ayaa deeqdan lacageed ee loo soo diray qoyskan danyarta ee haysta wiilkan aan dubka sare lahayn ayaa lacagtani waxay walaalahani ugu raadinayaan dhul ay degaan qoyskani maadaama in xilligan haysan dhul ay degaan dhulka ay degayiin ay leeyihiin dad gaarihi si dhulkaasi looga dhiso guri lagu xanaaneeyo wiilkani. waxaana walaalahani muxsiniinta ah ay ummadda muslimiinta ah iyo dadka samafalka jecel ay ka codsanayaan inay qayb ka noqdaan taageerada tabantaabada iyo qaadhanada kala duwan ee lagu caawinayo qoyskani danyarta ee aan maanta awoodin iyo maareynta noloshooda iyo sidoo kale la tacaalidda wiilkan yari. sadaqadaad maanta la baxdaana waxay ku anfici doontaa maalin aan maanta ahayn. ugureyn waxaa halkaasi ka hadlay aabbaha dhalay wiilkani oo ka hadlaya xaaladda wiilkiisa. iyaguna sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay walaalo muxsiniin ah oo baaq u diray ummadda muslimiinta ah gaar ahaana ganacsatada magaalada Wajaale inay qayb ka noqdaan caawinta wiilkan yar. horta xanuunkiisu waa sidan waan ku dhashay qoyska waxaan nahay Wajaale degan waliba iska danyara intan tabarucaad waxa ku soo gaarsiiyay ummadda muslimiinta waxay tadaweynoon haya ma jirin waxa ummaddu ku soo tabaruca sameeyeen ilaahay mahadiya ka gaadho. waxaan halkan mahad uga dirayaa mahadnaq hablihii soo xilqaamay ilmaha yar marka wax weyn soo caawiyay hablahaas marka la yiraahdo Al-Khayriya inta Safiya ee marka wax weyn ka wakiilka ayadana sidaasan marka wax weyn ugu mahad celinayna qof marka wax weyn kurbaya dhibaato ka saara Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana dhibaato korba ka saar maanta qiyaama. qofka waxa weeyaan qof muslimiina dhibaato ka saara dhibaatooyinka adduunyada kamida Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka saaraa dhibaatooyinka maanta qiyaama kamida. oo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maanta qiyaamaha qofku inuu harsan doono sadaqadiisa korba intay leegtahay waa waxyaabaha la harsanay. waxa kale oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay sadaqada inay dawo tahay oo qofku rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku daweeyaa dadkiina xanuunsanay sadaqada ku daweeyaa. waxaan leenahay markaa sadaqada aad la soo baxdeen hablaha marka Al-Khayriya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan khayr ha idin ka dhigo miisaanka xasanaadkana ha idin ku daro marka dhamaanteenba aan gacan qabanno oo marka waxa weeyaan wixii taalkeena aan u qabanno kulay waa ilmaha yar xanuunsanaya ku soo dhashay marka isagoo bilaaduba kulay waxa weeyaan si loo yar wadwaday kulba dawlad loogu waday dadka marka muslimiinta oo caawinayeen loogu yar waday waliba san noqdo la kala gartay inta maalintii uu dhashay lama kala garanayn inuu nin yahay iyo inuu gabadh yahay lama kala garanay markaas kulay waddo qoyskan oo qoyska danyarta ee waxa weeyaan markaas aan waxba deetaal aan haysanin kulay wuxuu u baahan yahay dhakhtar caalamiya oo waxa weyn marka la geeyo mahad celinayna dadkii ilmaha yar soo caawiyay waxaan leenahay khayr ilaahay siiyo bedel khayr qabana ilaahay ha idin ku bedelo ilmaha yar ee xanuunsanaya intii aad ku soo caawiseen. cidii kale muslimiinta halka ka daawatana waxaan ku codsanaynaa in ilmaha soo caawiyaan oo soo dhaweynana oo u duceynana dadka muxsiniinta Al-Khayriya oo ina ka qoyska masaakiinta ee $1630 soo gaarsiiyay. taasina waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ilaahay miisaanka khayrka ugu dareesay isku caawiyaan walaalahana soo caawiyo dadka muxsiniintaana waxaan u sheeganaa in ilaahay dirti ku soo caawiyaan dib iyo gudaba in ilaahay dirti ilmaha yar ku soo caawiyaan. iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Dagaal iyo sidoo kale xildhibaan Cibaada Maax Cilmi oo mahad celiyay walaalaha muxsiniinta ee Al-Khayriya ee deeqdan lacageed soo gaarsiiyay. waxaana ay yiraahdeen maanta waxaan joognaa Wajaale waxaan la joognaa qoyskii Raacaduur waxa ilmihii yaraan la jooga ee bilaadubka ahaa ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa in la soo caawiyo dibadda iyo gudaba in la soo caawiyo gaar ahaan maadaama magaalo ganacsiyeed Wajaale ay tahay dadka ganacsatada ka qayb qaatay in marsi loo caawin lahaa cadceed maxamiil kale dhaxan maxamiil kale waa bilaadubka in wada weyn hadii loo helo oo doon dibadda looga helo inuu saadaan
islaami haba laga yaabo sidoo iyo wad arkasiin haloo gargaarana taliya dibadba mutaafka Soomaaliya umada muslimiinta haba dhamaantoodba ina ka yaroon in badan la soconay arintiisa oo ina yaro bilaadub ah cadeedna kareynin dhaxana kareynin ilaahay dartii habla u soo diray dhowr jeer bay lacag u soo direen imikana lacag bay u soo direen $1,630 baa lagu soo hagaajiyay hablihii alkhayriya ee Ingiriiska oo wakiil ka ahayd Safiya Cabdi Obsi ay wakiil ka ahayd waxaan leeyahay horta halkaad ka soo saarteen ilaahay khayr haydin ku bedelo waa mid labaad waxaanu u sheegaynaa markii af Soomaali ku hadla iyo dhammaan dadka oo dhanba ina ka yar in la soo caawiyo والله markaad sidaa u eegto dawayl ma yaro dhiban qofan cadceedna kareynin dabeelna kareyn tiqsina kareyn kanacaan kareyn cid walba way ogtahay ilaahay dartii waxaanu leenahay alla soo caawiyo intii ka soo saartay halkaad ka soo saarteen ilaahay bedel khayrka qaybaha idin ku bedelo waa lacagtii al khayriyo soo dirtay oo ku wareejinayno waxaanu leenahay meel ay degaan aad ugu raadisaan kasay meeshan temporary ahayd bal meel ilaahay permanent ku dhigo ilmaha yar cadceed iyo kaga hoydaan ilaahay dartiina qof in la soo caawiyo inta ka wanaagsan salaam alaykum wayala xaaji telefishinka qaranka Gabiley.